Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in shaqada ay qabteen guddigani ay aasaas u tahay xal u helidda caqabadihii soo wajahay fulinta heshiiskii 17 Sebteembar iyo tala soo jeedintooda oo soo afjartay kala aragtiduunaashihii ku aadanaa dhaqangalka heshiiskaasi kaasi oo ka dhignaa horumar weyn oo laga gaaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xusay dadaalada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee loo qaaday horumarinta dowladnimada, adkeynta midnimada shacabka Soomaaliyeed iyo xaqiijinta xasiloonida siyaasadeed iyo amni ee dalka. Kulankan waxaa ka qayb galay madax uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Injineer Maxamed Xuseen Roble, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir. Maalmaha soo socda ayuu magaalada Muqdisho ka sii socon doonaa shirka wada tashiga madaxda heer qaran iyo heer federaal si go'aan mid looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka.